السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي صلى الله عليه وسلم مركي وكهد لا صاحب لماذا وحول نسيت سؤال عجيب وحول يري مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير وحول كتل مامي صاحب هذا حن صاحبك وناكسن صاحبك وناكسن وحول كتل مامي ننتو عرف قضاء ما أنت مركا أوتكتي كوسماتكس أمل تكون كل قضاء مركا تكتي وحكوا هذا وكفكر وكاد أذوق الوصول لقى waxaa caraftii kala dooranaysa caraftii mid kana dooranaysa mid kan dhowr carfood udug kala duwan laga yaabaa inaad doorato ee caraftaas ay kugu soo baxdo qaarkood gacmaha inay soo gaaraan laga yaabaa inta marka meesha aad ku jirtid caraf inaad noqotid ama qasaare kuma soo bixis ama uduga la soo noqonaysa ama cadar la soo gadanaysa kan xunna wuxuu nabiga ku tilmaamay qof waxa waa biraha sameeyo qofka markuu biraha sameeyo agtiisa waxa ka yeerayso dhimbila daadanayo dhimbila far badan oo dhimbalaas marka waxa ka cabsanaysa inay ku gubaan ama inuu dharka ka gubo ama in qiiqas ugu yaraan qiiqado wato oo uraay qiiq baa ka soo noqonaysa marka labaas tusaale kala yihiin qofka wanaagsan tusaalihiis asagoo qof wanaagsan maanta waxaa laga yaabaa qofka wanaagsan inuu asaga cilmi inuu ku faa'iideeyo waxaa laga yaabaa qof aadan aqoonin oo wax soo gudbiyo inuu ku tilmaamo qofkaas wax badan ma ka dhigaysan noloshaada wax badan ay bedeshaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa qofkan in wanaagyo badan inaad diintaada dhistid inuu kaa caawiya laga yaabaa aakhiradaada uu kula dhiso adduunkaada uu kula dhiso wax intifaac leh mar walba uu kugu soo kordhiya laga yaabaa midka xunna waxaa laga yaabaa qorshe adeeg ku degsanaaba laga yaabo inaad kaar akhrisan rabtid ama aad tasbiixsan rabtid ama quraan akhrisan rabtid in qorshahada uu ku daba mariyo waxa laga yaabaa meel aan aakhiri adduunba aan manfac ku lahayn inuu ku geeyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu kale wuxuu yiri almar'u ala diini khaliilihi falyanzur ahadukum li saahibihi qof walba wuxuu leeyahay diinta saaxiibkiis ee ha iska eego qofka uu saaxiibka dhiganayo marka Soomaalidu waxay tiraahdaa tus saaxiibka kumana madoobeeyo kumana caday wuxuu ka dhigaa waxa kale jirta mahmaa kale ahayd tus saaxiibka qofka tahay ku sheegayay helnaarkana markii quraanku ilaahay noogu sheekana wuxuu dhahay markii calaacalayn waxay dhahaan saaxiib noo shafeec qaadana bixso marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu nagu arsaaqo saaxiibo wanaagsan oo nolosheen adduun iyo nolosheen aakhiro aan isla dhisno aakhirana aan nagu xumeen adduunkana aan nagu xumeen ilaahay nagu arsaaqo sidoo kale inta haysato ina ilaahay ugu mahad celino inta aan haysanin ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ku arsaaqo saaxiibo wanaagsan oo noloshooda adduun iyo midooda aakhiro ku kaawo assalaamu calaykum jazakumullahu khayr sidoo kale saaxiibka xun waxaa laga yaabaa in xumaan marka sameynayso sidoo kale ku dhaw waxaas caadi waaye dadka dhinaca wada sameeyna ku dhaw laga yaabaa saaxiibka wanaagsan wax walba oo xumaan ah waa qofka ku dhiidinayo oo wax walba xumaan marka sameeyso lahay may waxa mar walba xumaan hadaa inaad sameeyso kugu arkay ka cilnaa qof walba oo noloshaada aakhira ka fikirayo wuxuu ku wanaagsan in saaxiib laga dhigto qof walba oo noloshaada adduun maxaa iga galay iyo arimahaada ku garin hayana waxa fiican in xogaa la garsado taasoo dhiifnimo ya salaam alaykum